ድሬዳዋ የኦሮሞ ነች የኦሮሞ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማሰማት ነው ዛሬ ከብሔሬ ጋር የተቀመጥኩኝ እዚህ እኔ ከኔ በፊትም እንደሰማሁት ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼም አላቅም ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች እንደ አስተማሩን ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗን ነው ማቀው እና ዛሬ በዚህ መስበር አብይ በተናገረው ባለው ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል እና መቼም ድሬዳዋ ኦሮሞ ክልል ሆነ አታቅም በኦሮሞ ስር ተስተዳድራም አታቅም ከዚህ በፊትም በኢሳና ጉርጉራ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የተስተዳደረችው ካሁን ከትግሬይ በኋላ ቲቢኤልኤፍ ከጀመሩት በኋላ እነሱን ለኦሮሞ ክብር ስላላቸው እነሱን ጠቀማቸውና 2 አመት ኦሮሞ 2 አመት ሶማሌ ስላሉት በዛ ሰበብ ነው ኦሮሞ የገቡት ድሬዳዋን ከዚህ በፊት ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት ከሀገር ቤት 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ሃይ ስኩል ተቀምጦ በባቡር ይመለሳሉ ከመጡበት እኛ እንደዛ ነው ያደግነው ከኛ በፊትም አባቶቻችን 90 አመት ያውና እዚህ ተወልዶ እዚህ ያደጉ አሉ እና በጣም ነው ያንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አስቦ የተናገረው ነገር በጣም እቅርታ ማለት አለበት ድሬዳዋ ዛሬም ነገም ኢሳና ጉርጉራ ነው መባል የነበረበት እንደዛው ነው የሆነው እኔ አንድ የሚገርመኝ በኦሮሞ በኩል 5 አመት ኦሮሞ አስተዳደረ በሰላም አስተዳደረ ምንም ያለ ጭቅጭቅ ያለ ረብሻ ጨረስ ነው አሁን ተራው የሶማሌ ስለሆነ እንዴት ነው ቅስቀሳ መጀመር የሚቻለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንተ ሀገሩን እንድትመራልን ሀገሩን እንዲጠብቅ ነው እኛ የምንፈልገው እንጂ ካንተ ጀምሮ ሀገሩን እንዲበጠበጥ ያ ጥሩ አይደለም እኛ የምንፈልገው 5 አመቱን ታግዘን በሰላም ከኦሮሞ ወንድማሞቻችን ጋር ኖረን ጨርሰናል አሁን የባከነ ሰዓት ስለቀረበ የባከነ ሰዓቱን ሌላ አጀንዳ መክፈት ተገቢ አይደለም ድሬዳዋ weeyaan dirdaba waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed magac sumad bay lahayd magaceeda sumada waxay ahayd Ciisana Gurguray ahayd Ciisana waligeed ilaa mililig ilaahay la sidaas Ciisana Gurguray ahayd Ciisana Gurgurana loo yiqiin magac kale magac agdhig ma jirin intii hay la sidaas amxaarka يا مامول جري لبد وجاس بوحي وجاس حسن نبوي للتلين وتشينت أنت واضح وجاس بوحي واحد هيست وجاس حسن يجا هيست تاريخ لعبة إلى هالدير دبا واتوس وجيرانه تكلا إلا بعض دير دبا وحيل هاني سي لحظة كل كتاب برلمان السمية دير دبا كبح أو تجا برلمان تجا تكس دورش كبح دير دبا وبرلمان تجا السمية أرسبت تجا السمية waxa ka soo baxday Soomaali qolo kale kama soo bixin kun iyo 900 iyo 750 waxa ka soo baxay cilmi nuur ninka la yiraahdo yaa ka soo baxay barnaamijka tagay koob iyo 60 kun iyo 900 iyo koob iyo 60 waxa ka soo baxay cali diiriye yaa ka soo baxay oo barnaamijka tagay kun iyo 900 iyo koob iyo 65 waxa ka soo baxay faarax ajcali magaalada Soomaaliyeed bay ahayd ninkii kama soo bixin marba iyay Soomaalidu nin axbaar dhigtay Soomaalida ba afar isku sharaxday weys jabiyeen ninka axmaar baa helay haday jirto walaalahayga ormo may helaan axmaar baa ka soo baxay markaa taariikhda bileeday dirdaba waa tu soo jiraan ta kale ee labaad waxa jira kabaabigeega waxa jira garaada jiray hal nawaaxi kalka ku taalo iyo nawaaxigeegaba Soomaali bay ahaayeen wal wada hayaa warqadihiisa way jiraan Soomaali ba taariikh dheer bay leedahay dirdaba sida iyadoo ah oo taariikhda iyadoo oo leh ilaahay la salaasay ilaa inta ay labada ogaasuni ogaas xasan iyo ogaas buuxna ka talinayeen iyo dargigii kolku dhacay inta aan sheegay taariikhda way ka horeysay dargiga yaa la joojiyay barnaamijka la tagay laga dooranay dirdaba yaa la joojiyay dabada dargigii bay noqotay dargiga waxa maamulayay Soomaali ba maamulayay koow Maxamed Jarmal ba maamulay Maxamed Xuseen inka yaa maamulayay bookada sabadana waxa maamulayay Xuseen Ismaaciil
magaalo Soomaaliin baa maamulayso ka tirsan wax garab jooga iyo magac u dhigmo magaca Ciisana gurguraa ma jirin haddii Ilaahay laga helo kolkii ay soo gasho yaayigtuna wax Maxamuud Jarmalko ka dhaadhacay waxa tagay Cabdilaahi Axmed baa tagay Cabdilaahi Axmed isagoo maamulaya iyo ugu imatay maamulka isagoo hayo oo maamulaya ugu imatay yaayigtu Cabdilaahi Soomaali baa maamuleysay kolkay u imatay Soomaali baa maamulayso Soomaali bay ugu imatay ma jirin wax kale Cabdilaahi Axmed kolkii laga dhaadhiciyay waxa jiray waxa la dhigay abar dhooyin loo amxaar la dhigay amxaarkii kolkuu ma hay sanad ma gaadhin kolkii laga dhaadhicshay waxa hadana qabtay Ismaaciil Awaadan iyo waxa qabtay Maxamuud Axmed iyaga ilaa in muddo idil soo wada kolka dabadeed baa iyaga laga joojiyay kaloo Tigray kale magaalada Dirba taariikhda bay leedahay ta kale ee labaad sidaan u sheegay garaada jiray halkay ku taalo iyo nawaaxigeegaba Soomaali bay ahaayeen waa la wada hayaa warqadihii way jiraan waxa weeye magaalo Soomaali bay ahayd wax kale oo ka garab tali ma jirin magaca Ciisana gurgurana magac u dhigmayo ag joogi ma jirin imika uma maqlayna shirka dharaarta uu yiri ma oran malas ma oranin Dirdhaba Soomaaliya Oromaal ma oran Abbaas Sahay baa yiri shirba Dirdhaba ku yiri shir aan ku jirnay waan joogay anigu shirkaan ku jiray waan banaanbax wixii Dirdhaba Soomaali mala annaka la anilo wixii mufurankii la cunayad moodasin Dirdhaba laba sano banna waxa haynaysaa Oromo Soomaali laba sano banna Oromo haynaysaa banaanbax baan ka sameeyay waan diidnay iska kacay walku ka kacay dhaarii damba banaanbax baan ka sameeyay weyn baan ka sameeyay Dirdhaba taariikhda bay leedahay xaga kubaniga Dirdhaba jibriyadeeda waxa haysanay Soomaali ilaa ma ayso ilaa dabanle waxa jibri ay leedahay Soomaali ba haysanayso qolo kale ma jirin wax kale oo garab jooga ama la sheeganay ma jirin Tigreega horti ninka yiri sida maahin wax kale oo hadal oo Dirdhaba ka jiray ma jirin Tigreega baa sida yiri baa keenay tareenka Soomaali baa keentay kolka nin cadaana waagi hore helaysay dhaxdii hore ka hanjir madax kolkii damba waxa ka ahaa cabsiyo gasl iyo ilaa Dirdhaba ilaa arsabaya tigreerka ka ahaa Dirdhaba waxa maamulaysa Soomaali bay ahayd waxa dusha sare ka mari ahmaar bay ahayd ma jirin bas Oromo bal waa ka hel soo dhigin Oromo oo taariikh kul hal soo dhigo ma jiro magaca Dirdhaba ag joogeen hal keeno ma jiro taariikhda bay Dirdhaba lahayd ilaahay baa mahad iskale halkan isugu keenay annaga oo qoomeed walba leh ilaahay baa mahadda iskale waxa laga damqaday ee laga diiray hadeeraho xun ra'iisul wasaaraha ka soo yeeray waxaan ogol lahay maaha ha ka noqdo raali gelina ka bixiyo sidii odayada horeba soo sheegeen baan ku diyaayaan hadeeraho ku taageersanahay taariikhda Dirdhaba waa la garanaya 75 man anigu joogaa Dirdhaba baan agteedii tiriiga u muuqday yaan deganeenu joogi magac Oromo oo meesha jiray anigu ma maqal meel yar oo laga dool yiraahdo halka magaalada ka sareyso laga haraha baa Oromo degan la oran jiray imaka tani jeebka laga soo baxay waa yahaariigtii wixii ka dambeeyay magaaladuna taariikh iska leedahay degaamo iska leedahay kolkan hoos u dhaadhaco waxa la oran jiray xaafad daarood iyo xaafad ciis laba ogaasna waan ku soo gaarnay ogaas buux iyo ogaas xasan cid kale oo garab socotay ma jirin iyaga nin hadeeraho quraatay baa ka soo degay magaalada bariga hadeeraho la yiraaho 770 meesha qabri joole la yiraahdo soo degay nin iska miskiin u ahaa ninkaas waa Oromo ninkii Oromo la oran jiray caruur badan buu lahaa taariikh baan idin sheegayaa taariikh dambe inay hadana taariikhda warta waa laga weeyay dhulkana waa laga badnaa inay maanta jeebka kala soo baxaan uu yiraahdo abiyu hadeeraho iyo kii ku taageersan baa uu yiraahdo hadeeraho Oromaali waa isku dhifasho dadka walaalaha wada cunaya wada dhamaya isku gacalka iyo isku dhifanaya raali gelina ka bixiyo ha ka noqdo ድሬዳዋ የኦሮሞ ነች የኦሮሞ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማሰማት ነው ዛሬ ከብሔሬ ጋር የተቀመጥኩኝ እዚህ እኔ ከኔ በፊትም እንደሰማሁት ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼም አላቅም ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች
እንዳስተማሩን ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗ ነው ማቀው እና ዛሬ በዚህ መስበር አብይ በተናገረው ባለው ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል እና መቼም ድሬዳዋ ኦሮሞ ክልል ሆነ አታቅም በኦሮሞ ስር ተስተዳድራም አታቅም ከዚህ በፊትም በኢሳና ጉርጉራ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የተስተዳደረችው ካሁን ከትግሬ በኋላ ቲቢኤልኤፍ ከጀመሩት በኋላ እነሱን ለኦሮሞ ክብር ስላላቸው እነሱን ጠቀማቸውና 2 አመት ኦሮሞ 2 አመት ሶማሌ ስላሉት በዛ ሰበብ ነው ኦሮሞ የገቡት ድሬዳዋን ከዚህ በፊት ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት ከሀገር ቤት 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ሃይ ስኩል ተቀምጦ በባቡር ይመለሳሉ ከመጡበት እኛ እንደዛ ነው ያደግነው ከኛ በፊትም አባቶቻችን 90 አመት ያውና እዚህ ተወልዶ እዚህ ያደጉ አሉ እና በጣም ነውር ነው ያንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አስቦ የተናገረው ነገር በጣም ይቅርታ ማለት አለበት ድሬዳዋ ዛሬም ነገም ኢሳና ጉርጉራ ነው መባል የነበረበት እንደዛው ነው የሆነው እኔ አንድ የሚገርመኝ በኦሮሞ በኩል 5 አመት ኦሮሞ አስተዳደረ በሰላም አስተዳደረ ምንም ያለ ጭቅጭቅ ያለ ረብሻ ጨረስ ነው አሁን ተራው የሶማሌ ስለሆነ እንዴት ነው ቅስቀሳ መጀመር የሚቻለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንተ ሀገሩን እንድትመራልን ሀገሩን እንድትጠብቅ ነው እኛ የምንፈልገው እንጂ ካንተ ጀምሮ ሀገሩን እንዲበጠበጥ ያ ጥሩ አይደለም እኛ የምንፈልገው 5 አመቱን ታግዘን በሰላም ከኦሮሞ ወንድማሞቻችን ጋር ኖረን ጨርሰናል አሁን የባከነ ሰዓት ስለቀረበ የባከነ ሰዓቱን ሌላ አጀንዳ መክፈት ተገቢ አይደለም ድሬዳዋ ሰላም ነች የብሔር ብሔረሰብ ነች